خيارت الشرفت له برتان aan saaxiibada ku nahay dhammaan soo dhawaada ayaa idin leeyahay meel walba dunida ka joogtaan iyo si walba oo maqlaysaan caaw barnaamijku wuxuu ka hadlayaa arintaas ayaa u soo galay barnaamijku waa arin xasaasi ah waana run ahaantii arin u baahan in laga hadlo marka arintaas ayaa ku hadlayna Cawaale Aadan iyo ninka la yiraahdo Omar dagaalkoodii sababta loo soo dhaxgalay ninka la yiraahdo Iileere sababta uu meesha u yimaaday ayaa rabaa inay caaw ka hadlo si fiican ii dhageysta caaw barnaamijku waa xasaasi qodobo adag ayaana ka hadli doonaa hadii aan la yiraahdo marka akhyaarta sharafta la soo gala soo bata akhyaarta sharafta leh barnaamijka si sheergalay hadii aan la yiraahdo caaw barnaamij noocaas weeye wuxuu ku saabsan yahay fanaaniinta reer Canada oo maalmahan dambe is haystay buuqii social media uu ku batay marka barnaamijkaas uu ka hadlayaa hadii aan la yiraahdo marka akhyaarta sharafta leh soo dhawaada siina sheergalay barnaamijka saaxiibada u gudbiya idinku mahadsan dhamaantiin aad baa idin salaamaya kuna soo dhawaada barnaamijka horti marka ugu horeysa aan ka hadlay labada fanaan ee is haystay waxay ahaayeen Omar iyo waxay ahaayeen fanaanka kale ee Cawaale Aadan ee legendiga la yaqaan meesh waxa soo dhaxgalay dad aan la aqoon meel ay ka yimaadeen meel ay wax ku darsadaan meel ay Soomaalinimo ka sheegtaan meel qof bini aadan meel lagu soo qaadqaadayo dad aan ahayn baa meesh soo galay waxay ka raadinayaan magac bay ka raadinayaan in la bombooniyo oo la dhaho فنان هبل soo dhaxgalay fanaanka la yiraahdo Omar iyo fanaanka la Cawaale Aadan waa garanay hees caadi ay qaataan dad nool heesoo bay soo qaadeen bal Iileere adigu hees laga dhintay baa qaadaa oo dadkii lahaayeen ay dhinteen baa koobi ku soo qaadaa marka adiga waxa taa wax liita oo heesana aan lahayn fanaanna aan lahayn waxa la abwaana aan lahayn meel loo raacan aan lahayn marka inaad dagaal laba nin oo dagaalamaya inaad soo dhaxgashid هرتتاسي آدي بشرف طريقتا وأك سلامة يا عبد الناصر حسن محمد عبد الرحمن علي قاس تليورجو سكفان ماتوا إن سلامة يا سود وأنا أخيات شرفت له برنامج كروس الشرقية عاو وحل السلاري ملها إلهي كلية عاو لقى بقيا بني آدم لقى بقيا ملهن رنتها الشيء عاو وعيد أنا كحشونين ملهن عليه مركب waxyara hada idin taabto ninka la yiraahdo Khalid Yare waxa ninka la yiraahdo Iileere iyo ninka la yiraahdo Cawaale Aadan horti sababtu Iileere u helay Cawaale Aadan wax kale ma gaal jecel sarar soor baa la iyo Ciise sarar soor lafta uu ka dhashay Cawaale Aadan waa Ciise Jabuuti diga waa Ciise sarar soor iyo gaal jecel sarar soor waa ilma adeer arintii qabyaaladu marka dhigay saaxiibkii Iileere waa arintii waxa sababta saadarteed uu soo dhaxgalay qabyaalad dimo iyo qurur iyo wuxuu soo dhaxgalay hal lagu dhaho waxa tahay fanaan u helay ama Cawaale Aadan ama halka magac kaga raadi laakiin wuxuu soo galay waa qabiil lagu ma gaaro qaran وديكاس وقال جعل سر وعيسى سر يصور وقال جعل سر سببتها لا تيجي بوصوب قال دجال بوصوب حق هذا أمريكا وحير اللي كتبت دجال وسببته وكبلوضي يقاف وكبلوضي شيء يعني كان لي راه أومار هيس بسوق هذه اللي راه بربر وأول تقارن إيدي شيء مية هيستي وسوق هذه بربر أهيد مركو دمي أنت أسوأ مليون أي داوتي والشعب بدل أي داوتي وهيستي نيكي أكلة كعضي وسوق كهلي واحد كتب الشراع على نيكي اللي راه عوالة هذا وكل أيام هيس واجر تريا ويل بأودينيا ويل كسر واحد طايا هيستاس إن كان هيستاس فعوا مقادني كله فوق هذا عضله هذا قصة بحي هيستا كقادنك واجر تريا هيستي مد بأوديني فنان وشيء وسلك كذا شو فنان يبقى وحياه الله أقول مركن نيكا سوربينو كسر شعب صار هيستا ومار واقع هيست واقعي وكسر شعب بحي ومار إيه بربر بالو بحيي مركن نيكي هيستي قاضي بقى أنت ليه قال واحد على وحاب الوجودي بيابا وهذا هيست الوجودي بيا نيكا محود ريم يا مرك وإنه ومار هالله وسر جن ملا وهالله وديك جيس كعيو ورنت أشيوه عوال آذن واستاهلها وهايونين واحد مغلي ترينين باسكولات كله فتوى الكدلين بقول كاجا بوصوق عليه
boqolkaaga uu soo galay marka ninka ragga ah hadda dusha isleeyahay kaga istaag waa inuu markiisa dimiir u galo uu hadlo ragnimadiisa video isku duubay meel uu soo fariisto uusan runta u sheegay cawaale aadan uu fanaaniinta Canada joogta waxaad ku haysaa caqabad weyn baa ku haysaa fanaaniinta Soomaaliyeed ee Canada joogta fanaan walba oo Soomaaliyeed caqabad baa ku haysaa laakiin fanaaniintu way ka baqdaa wax fanaan oo runta ku sheegay oo kula hadlay oo ku dhahay warsaa ay saasatay tuug baa tahay dadka xitaa waxaan maqlay heeso uusan lahayn buu laxmadooda sheegtaa heeso uusan lahayn buu wuxuu dhahaa anaa qaaday eriyadooda sheegtaa heeso uusan lahayn buu sheegtaa wuxuu dhahaa anaa iska heesta anaa leh war cawaalaada waa tuug ahaaday anagu waa taageeri jirnay fanaan weyn buu ahaa fanaan weyn oo aan taageerno oo aan ku xirnaay oo heesiisa har iyo habeen waa dhigeysanaa balse fanaankii wuxuu sameeyay inuu musuqmaasuq mutaqaana cadaalad kama shaqeyn din intuu heestiisa jarjaro nin kale u dhiibaya waxaasoo kale cadaalad lama dhaho waxaa la yidhaahdaa tuugnimatii ugu weyneed adeer waxaasoo kale cadaalad lama yidhahda cawaale aadan fanaan ma aha waa tuug waa ciise qabiilna ciisu ka yahay ciisaha dega Jabuuti oo 25 ka laangaabyada abuu qabiil ka yahay isaga ahaana heesaha uu qaaday oo dhan wallaahi oo bilaahi tulaa waa loo sameeyaa wax uu leeyahay baan jirin hees uu sameeyay baan jirin hees barbarna abwaan weyn baa sameeyay ninkaas loo sameeyay ninkaas waa qaaday hadduu rabaa inuu ilmo yar uu soo dhiso alla aqoon magaciisa meel uu ka soo galay Soomaali oo fanaan aan ahayn wax uu yahay aysan jirin buu rabaa inuu hees barbar u dhiibo uu ku soo caanbaxo ninka kale oo marna uu gees uga qaato laakiin taa dhicmayso adeer gacli Soomaali horay buu soo jidhay horay baa lagu ogaa cawaal aadan inaad heesaha kaliya ma aha sida kale aad tuug tahay dad badan oo aad mataqaanaa laxamadooda sheegtay baa jira iyaguna aan hadli karin laakiin waa loo hadla adduunka hadal baa la isdheeray ninka kaama wuxuu ku dhaa wallahi billaah hadda ariga intaas wax ka badan ariga u sameeyso tigid baan soo jaranayaa waxay isla joogan Canada tigid baan soo jaranayaa guriga ku imaanaya waa ku dharbaaxaya dhaglaasa kala daalaya wallahi billaah tulaa waa mabda la yaabay in ma taqaana dharbaaxa dhahday dharbaaxa iyo suul wax walba in la dhaco waa istaalarkaas fanaan buu sheeganaya dadkii uu dhacaya laxmadii buu heesii ka dhacaya erayuu sheeganaya uusan lahayn beer ah propaganda wax aan jirin buu ka shaqeynaya marka Omar waxa leeyahay waa fanaan dhalinyaro ah waa fanaan soo koraya waa fanaan qabiil ahaan marka loo eego laandeera ah waa fanaan marka loo eego cod ahaan codkiisu soo baxay waa fanaan marka loo eego fanaaniinta kale wax dheer har iyo habeen ma taqaana wax eray sax ku heesaya heesa kale tirada kale soo qaaday heesa kale heesan barbar baa adduunkii oo dhan rogtay heesa kale jiro oo xitaa soo saaray oo ahayd heesa kale waa jireen oo liba jaac soo galay YouTube-ka marka cawaale aadarow adiga laga baxsan waa erayaal ka baxsaneen fanaan baa ka baxsaneen abwaan baa baxsaneen qof walba oo fanka wax u galaan baan ka baxsaneen laakiin runta lagu sheegayaa oo qof walba oo Soomaaliyeed maanta haddii uu ka aamuso isdhiimaysid dadku dhan baa ka aamusaya war Soomaaliyeed ka hadii ka aamusan dhul qof agumaysid Soomaali waa badan tahay dad aan ka aamusin baa jira oo dhiiga isku karinaya waxa tahay banaanka soo dhigaya laangaab inaad tahay baqtiya oo erayada dadka sheegta oo wuxuu lahayn sheegta oo ma taqaana dadka alqaradku ah waa lagu sheegaya runta ku sheegayna ayuu ii tuuray barbar baarta inaa ilmo yar lagu soo caanbixisiisid oo siisid ma naqaan dadka sheegaysid walaal heesa u dhiibiya aniga الفنان عمر بان قانا هيستا بربر هيستا كلا واسو ساري وكسوينا هذا هيستا بدن باولي بكسوينا او ان يوتيوب كا دهدي ميل walba dadka Mareyka daawanayaan waa fanaan dhalinyaro inuu soo shacbo waa jecelna jaariskiisu haystaa nin weynaada baa teeda kale taa iyadoo dadka yaryarka ah la guureysay kale dhalinyaro inuu maanta dagaal soo galo oo isaguna dhaw waa jawaabaya adiga nin weyn baa taa maanta adigu waxa la tirsan lahayd fanaaniinta waa weyn sida hadii la ku yimaayo أنا فنانين وين باجر اسكولات آتين سؤال أهان هدي أدي شيء فنانين تمريك كشوكتا نكلي هذا المريرة إيو واحد اسكولات باتين بتكاس أسلام رم كده لكن ندلني رأيه وقرنا يساعدنا كوميديا أبوها فنانين ماذا حد قلي باوحة كبلو وضيب الشحات يدون يقرر رأي إنا ريجي تعديد ويالك لا أنا لهين كسر شعب حسد ومتقنا فنك وحى كتاه وحنا لقرنا فنك توب با كتاه runta la isheeyaa Soomaali been iyo propaganda waa ka soo daysay waxa la marayaa runta la isu sheegaya in laga baqay malahan
oo ninka la yiraahdo Omar waa fanaan dhalinyaro waa soo mataqaanaa soo shacbax haddana heesa kale oo soo qaadaya adiga aad sameeyo laakiin cawaale aadan adiga sharaftaadii fanaanimadaadii adiga fanaan baa ku haysan way heesaa soo qaaday wallahi waa ark Soomaali oo dhan baa heesaa ku raaxaysan jiray cawaale aadan waa fanaan lejina waa fanaan meel walba YouTube-yada heesaaga milyan bay gaareen waa aragtay qof walba Soomaali waa ku taageersanaa laakiin maanta sirtaadii baa la soo dhigay sirtii baa marka la yiraahdaa dhulka ku soo dhacday cawaale aadan waa ka kac waxa dhowrka maryan gaaray waa dhulka ku soo dhacay bal adigu hees dambe aad soo qaadi waa la arki doonaa bal inta daawata wallahi 20 ka badnaanay 20 waayo taageerihii dhulku kaaga dhacay maanta yaa taageero ku noqonaya fadeexad waxa gaadhay dhalinyarada yaryarka inay ku soo islaamtid fanaaniinta kale laga leeyahay fanaaniinta iskuuloodka tihiin la xifaatan iyaga heesa ka xad baa dhahday miraha ka xad daarabta laakiin wax dad yaryara dhalinyaro aad soo kulaya oo idleeraha laftiisu waa dhalinyaro heesu waxad xadaa hees liiqaan oo uu leeyahay ma wali uu qaadin wali hees uu leeyahay oo uu qaaday oo majidho oo ereyadana leeyahay lacag wax walba leeyahay majidho heesa la xarxaday fanaaniinta hore iyo mataqaanaa ay qaadeen ciyaal waxa soo cusboonaysiya marka yaryarkii baa isku kicisay yaryarkii baa jir sidii jirka isku kicisay wax ka qabtana la'ya cawaal aadan runta ku sheeynaa fanaan weyn oo lejan ah baa ahayd sidaad ku soo laabo hadii kale adeer gacali dhulkan ku dhigaynaa fadeexadana dhulkeenaynaa dhulkan la jareynaa dhulka cawaale aadan horta qabiil wuxuu ka yahay ciisa Djibouti degaa fanaanimana waa wali fanaan ku soo jiray qabiil haday noqoto ninkan waa majeerteen waa Umar Maxamuud waa reer mahad haye ilaahay baan ku dhaashay anda waxa taa ciisa marna waa Djibouti marna la yiraahdo waa qoliyahaas mataqaana 0.5 ka tirtir baata ilaa deera maanta hadii aad meel timaadid adoo dhan ku bireysan karaa ama ku cuni karaa la deernaba laga gaaray wallahi billahi waxa maqli jiray aniga waagi mataqaana ciisa lagu sheegay waagi la asaasi majeerteen horta majeerteen baa wuxuu ahaa reerka ugu horeeyay Soomaali qabiilka ugu horeeyay oo soo baxay majeerteen buu ahaa waxa ku soo xigay Mareexaan oo dhowr qof laba u soo baxeen si la sheegay waagi adiga 19 waxa ahayd 1945 hadana khaldin Mareexaan oo laba u soo baxay hal ba soo shacab ba adduunka ku soo biiray si u socotay sheekadu u socotay Mareexaan waa tarmeen waa tii kacaanka iyo hawsha dhacday Maxamed Siyaad Bare madaxweynaha noqday Maxamed Siyaad Bare marka qabiilo badan buu asaasay waagaas xitaa habar gidirta lagu sheegayo waxa asaasay ninka la oran jiray Caydiid ba asaasay yuudka Caydiid ahaa iyo rag kale oo mataqaan iyaguna rag kale oo isla socday waagaas isku jibaaday ba habar gidir wax la yiraahdo waxay asaasay 1964 waliba taariikh waa saxanta 1964 ba asaasay wax la yiraahdo habar gidir intii ka dambeysay ma jirin wax habar gidir la yiraahdo adduunka kuma nooleen ba qashin bay ahayn wax aan la garan maanta waa kaas waxa la leeyahay habar gidir ba saasa habar gidir ba galmudug dhisatay habar gidir ba baqbaq iyo habar gidir waa laga badbadinayaa baanta waxa la leeyahay habar gidir waa mooriyaan maxaa adduunkan 1964 baa ku soo biideen inta kale waxa ahaydeen baqti baa ahaydeen wax bini aadan iyo loo kala garan waayo waxa ahaydeen bini aadan iyo dugaag wax loo kala garan waayo adduunkan hadda ku soo biideen marka adduun wayna ka horeeyay oo adduun dadku ugu horeeyay baan ahayn barnaamijkan u guda galeynaa cawaale aadanow nin weyn baa tahay fanka Soomaaliyeed waliga waa ku jiray anoo maanta ka sheekeeyno fanaanimo ka sheekeeyno qaabka eriyo loo samaysto adiga eriyo aleeda xitaa ku faanmaysid wax aadan lahayn baa ku faanaysa wax rag kale waxay leeyihiin aan xitaa hadli karin baa ku faanaysa laakiin maanta waa loo hadlay waa lagu fashiliyay fashilkiina xitaa isdhiimaysa xitaa waxba ku galay wali waa siin adagtaa wali waa ku siin adagtaa nin weyn baa tahay misra dhaadhaana oo ma qaan wallahi billahi wali marka fikraysid oo soo jawaab fiican bixinaysid wax aan la garanayn inaa hadlaysid iyo inaa sheekeynaysid baa bixinaysaa marka adeer gacali waxa la hadlayaa ninka cawaale aan leeyahay la gaab ku dhalay ciisa ah ninka fanaanka laandheeraha ah ee majeerteeka ee soo shacbaxay adigina maalmaha kan hadalkaagu waa la waayay waa soo sheegay waxa rabtaa inta yarta ku soo hadalkaaga lagu soo xasuusto oo la dhaho cawaale aadan baa Omar qabsaday baba halka u sii qaaday adeer gacali inta ku soo shacbixmaysid maalmahan magacaaga hoos buu dhacay
كلا بدك كل شيء وحكوا يا العين وروحانيو وكحشونينا فنان نمدي سها قدريو هو قدالها سكول لابتو هاي فكره وإلهي كبقوا وضدك يسوق واحد يتكداي بغت يا بغت وفناجي سما وداعون كفنك وي وإلك عسى وكله إلك عسى سيدو لو عي والله صادي ساسة بغت باتا فنان نمدي نواس كفريس أدينا هاد مرة هو كفريس سنة إلى تاي ويقف أنكو عاي وأنكو على ذين ملاي بغت باتا يا وح فنان ملا وح كوك تهيلا بترين سواحة إنك أومار وهدر الأوجا صدق السوق هذا مس أفريس لحفال ثمية فنان دي كلا دلمريرة كان ميركو شيء قاعد يجيجا ميركو شيء دلمريرة ما تذكر كل الإكاء هي سأل قارج ما دلمر هذا وحكو صوت لا وتلاقي واحد بدي يليره يصور بربر نيجي قاري أومار أنا أرجع علي نوين باتهاي هي سوا قاري كذا أنا هي سما قاري كذا تقولين هي سوا قاري كذا حكمة له هي سوا قاري كذا دتك جعليه هي سوا قاري كذا ومدة كفعية هي سوا قاري كذا ومدة كؤوية هي صنوعي تهوى قاري كذا لكن وح أسكت إذا كليه إنا فنانين تأسيسد فنانين إنا فرصة سيسد كاير سوكرية تانس كودا هيستا هذا الربع إنا أدونك نوض مقعود كباه فنانين تكلي تانسي أي ذاتك متقانا أي كبرتان أي فنانين لجنة كل نقطان أي هسحق مدلو كسوق قادان لكن هيس والبقوا أي سوق قادان أنا يا مير واحد لسه استاغيا وأريدي يلا حكي الفنان عوالة آذن هذا وحيا كايلي وين باتاي كذا اسكول لابو فنانين تير يركا كدا عدباد أو كوة ديد يعنادسك waxaan kaloo la yaabanahay oo ilaahay hadda la yaabanahay idlayar waxa dagaalka soo galay inay sheegaya waa qabyaalad idlayar waa gaal jecel iyo ciisana waa isla dhasheen oo waa gaal jecel sararsoor iyo ciise sararsoor arintii qabyaalad uu soo galay madax isku stuuray dalq annagana ina qabyaalad soo galo oo majeerteen anagu ka socono dalq soo dhaano yaa loo diiday laandheeru dhalay waanahay oo isan cidna qabsan karin oo banaankiisa ku doobinaya oo sidii laandheeru u hadlay cidna aysan qabsan karin adduunka laandheeru maaha ninka kaliya afka Allah waa ninka caadi isu cadeeya qabyaalad baa loo ku imaanayna meesha ku difaacayna fanaankeega yarka ay noo soo koraya hal loo daayo hadii kala Soomaali wallahi madaxa isla galaysa billahi talaaya la kala garab bixmayo ku taayidin sheeyna Soomaali adeer noo daay fanaanka yarka noo daay فنان عانة وهذا الصوت عم بحي ودوك أردن براك أوباما وحمقلي براك أوباما دونالد ترامب يسن يسيس بربر أستورتوري حوالي أدور هذا وش قاضي هيست اللي هذا هيست أدو هذا دور هيست بعد تجريس هيست عنك هي هيسيس هيست عنك الدور هيست بعد مركز صورة بقى إنه عقل جيس فنان كيرك عرقل ذي ولي ما تقن حمو وحان لوفدين أدر باستر باتاي فنان من مسجن يصير أبوان متجد واحد كوب تهيبة إسكير الفنان دخل حماده كلاتك أنا جا أنا رجع لي ترى كلا واحد مغلي تري قف سيدنا بهدول بقف لي تيه عقل لهين تمير لهين وحبك لا جرين أنا يرددا أروح هذا مات أفكر سالم قف هل كروا إيمانيا هذه عوالة هذا وده إسكبرتي كوا أدمانو البريود سيد تدخلها هلا وكل حساب طبيعي إبارية maalin walba dad baa ereyada sheegtaa warkaaga waa la su'aal keenay marka dad kula hadlayo oo nool oo xay ah oo nolol ku jiro baa kula xisaabtamaya awaala aadan waa baqti aaday la gaaba heesana aan aqoon fanaan ahayn baqti dhalay waxba aan la joogin waxa la iska qabto waxa Soomaaliya lagu soo fasixin waxa soo kala maanta Soomaali fanaan sheeganaya war waxa waa inaan iska qaban horta Soomaali marka dama hal la xisaabtamo laakiin horta kaasoo kale la iska qabto kaasoo kale oo ummadda fasahaadinaya وأنت يري هسنا الشيء بل وأنا فنان ولا فنان هسنا والشيء يا كور بالشيء كذا حيأتيك شاور أبا دين سلام يا رمان أخيار الصرفت له سهراء أبا قول سلام يا محمد أحمد جامع نور أبا قول سلام يا عمر إسماء إبراهيم بيجي ليس أبا قول سلام يا